calaamaat ulxasad astaamaha lagu garto xasadka in qofkan uu yahay maxsuud inuu yahay qof la xasday inuu yahay astaamaha uu ku garan karo ayaanu faaqi doonaa haddii alla qadaro. bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa akrami khalqi illaah sayidina mowlana muxamedi الnabiy lumiy waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin abacd. ciwaanka maanta aan qaadan doona insha allah wuxuu diiradda saarayaa calaamaat ulxasad astaamaha lagu garto xasadka in qofkan uu yahay maxsuud inuu yahay qof la xasday inuu yahay astaamaha uu ku garan karo ayaanu faaqi doonaa haddii alla qadaro. ugu horeyn xasadka iyo ishu waa xaq, taas shaki kama taagna, maxaa yeeley nusuus ay ku soo aroortay oo qur-aan kariimka iyo sunada nebiga caleyh isalaatu wasalaam ah. wuxuu nebigu yihi caleyh isalaatu wasalaam alcaynu xaq, ishu waa xaq, walow kaana shay-un saabaqa alqadara sabaqathu lcayn. hadduu jiri lahaa shay ka hormarayo qadarka isha ka hormari laheyd, sida ishu xaqi u tahay. xadiidkaas waxaa soo saaray imaam muslim. haddaba xasadku shay kooban ma ahan, kuma koobno qaraabada keliya. qaraabadu way ku xasdi karaan, deriska ku xasdi karo, dadka kula degan magaalada ku xasdi karo, iyo dadyo fara badan ayaa ku xasdi karo. hase haatee waxaa habboon mar walba in qofku uu dhufeys samaysto, kuna dadaalo cala taxsiin min alxasad, inuu iska ilaaliyo ka dhufeys xirto xasadka biaayaati alqur'aan wa adciyati الnabiy sala اllahu alيh wasalam, iskuna difaaco aayadaha qur'aan kariimka iyo ducooyin ka soo arooray nabiga caleyh isalaatu wasalaam. tilaabooyinkaas ayaa habboon in qofka inu qaado. haddaba astaamaha qaar a sheegi doonaa oo lagu garto xasadka. astaamaha qaar ee lagu garto xasadka ayaanu sheegi doonaa de alla idmo. kow, in qofka qalbigiisa welwel uu ka dareemayo, qalbigii ayaa rogrogmanayo, walbahaar iyo walaac ayaa qofka ku xiran, kaasaa ku shidan had iyo jeer waxsuu dareemayaa. waa astaanta koowaad ee xasadka. waxaa kol kamid in qofka wejigiisa borboor u yeesho, wejigiisa oo laleeyahy waa nin baryaa ma xanuunsaneed, qofka arka uu ka naxaya wuxuu leeyahay war maxaa kugu dhacay, ayaamaan midaa jiraneyd. isaga inaa jiro gooni iska ogaan ma jirto qofka, wejigiisa ina borboor ayuu yeeshay. waa astaamaha xasadka. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka oo saddex ah, in qofka xanuun uu ka dareemo fi mafaasil اljismi, kalagosyada jirka. kalagosyada jirka in xasad inuu xanuun uu ka dareemo ayaa kamid ah astaamaha xasadka. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka in qofka uu dareemo xanuun ama hargab uu dareemo iyo culeys madax iyo garba, madaxa looga degan yahay. waxaa kaloo looga degan yahay garbihii ilaa qoorta. xanuunkaas waxaa kamid yahay astaamaha xasadka. hal dhinac inuu iska xanuuno, ama dhinaca qaarkan ama qaarkan kale qofka uu ka dareemo xanuun uu ka dareemo, astaamaha xasadka ayaa uu kamid yahay. maxadka barashada diinta islaamka ee nasruddiin online. maxadka online-ka ah ee barashada diinta islaamka ee nasruddiin waxaad ka helaysaa barashada qur'aanka kariimka ah iyo tafsiirkiisa, barashada higaadda qur'aanka iyo xifdiskiisa, iyadoo xoogga la saarayo ardayga in uu si fiican u barto higaadda qur'aanka si uu u gaaro isku filnaansho in uu wax qori karo waxna akhrin karo. waddan kasta ee aad joogto iyo wakhti kasta ee aad u baahato maxadka nasruddiin waa garabkaaga, waana wehelkaaga. wixii faahfaahin dheeraad ah ee aad u baahato inaad nagala soo xidhiirto nambarkan hoosta ku qoran ee whatsappka nagala soo xidhiir. mahadsanediin. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka in qofka miisaankiisa hoos u dhaco. qofka miisaankiisa sabab la-aan, duuna sabab waadix, sabab cad la-aanteed in qofka hoos u dhaco miisaankiisa, astaamaha xasadka oo kamid yahay. marka lagu tufaayo kale qofka la quraan saarayo in uu dareemo xanuun u dareemo ama culeys u dareemo, astaamaha xasadka ayuu kamid yahay. in qofka oo iska ooyo ama marka quraan lagu bilaabo kale oo ooyin sabab la-aan ah, ama soo isaga joogo intoo fakero kale oo iska ooyo, ishiisa ilinta ka dareereyso, astaamaha xasadka kamid. qofkaas waa maxsuud, waa la xasdi.
aad u fara badan yahay astaamaha xasadka. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka, waxaa kaloo kamid ah isbedel qofka ku dhacdo, isbedel ku dhaco hab nololeedkiisa, hurdadii kale oo iska waayo, dhafar joogto ah, hore uun ka seexanin, astaamaha xasadka oo kamid yahay. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka in qofka ruyooyin xunxun qofka lagu ibtileeyo, oo mar walba masas iyo abeesooyin iyo dad dhintay iyo mukulaalo iyo weliba mukulaalaha madowga ah iyo noocaas kale oo aad ugu riyoodo, qarowgaas lagu furo ayaa kamid ah astaamaha xasadka. allahu akbar. qofka ay muruge iyo tiraayo shadiida markas qofka ees astaamaha xasadka ayuu kamid yahay. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka in qofka in gurigiisa joogo oo rabo in guriga dhex fadhiyo oo guriga una ka dhex bixin oo inuu banaanka u baxaba diidan yahay ayaa kamid ah astaamaha xasadka. taasaa kamid ah astaamaha xasadka, qofka oo inuu guriga dhex fadhiyo oo iska jecel yahay, iyo in dadkii uu ka fogaado, dadka inuu ka fogaado oo dadka ku dhex jirkooda qofka uu karahaysto, uu nacbaysto, oo inuu keligiisa ahaado oo had iyo jeer uu doonayo, waxay kamid tahay astaamaha xasadka ayaa kamid tahay. isha iyo qof in la eleysta iyo kulli taas ayaa kamid tahay. waxaa kaloo kamid ah mashaakil guriga soo dhex galo, dadka guriga ku noolaa, ninkii xaaskiisii, ilmihii waalidkoodii, oo mashaakil iyo dhibaatooyin iyo khilaaf soo kala dhex galo iyo isfaham daro, astaamaha xasadka ayaa uu kamid yahay. waxaa kaloo kamid ah astaamaha xasadka, waxaa kaloo kamid ah in guriga farxad laga waayo, guriga farxad laga waayo oo laisku buuqaayo had iyo jeer, astaamaha xasadka uu kamid yahay. allahu akbar. waxaa kaloo astaamaha xasadka kamid ah qofka inuu dareemo ashucuur bilya'si, inuu quusasho qofka oo dareemo, quusto oo yidhaahdo nolosha ka quusto ama wax kale ka quusto, astaamaha xasadka kamid tahay. ashucuur biraqba fi nacaasi daa'iman, in qofka gamaayadii ama hurdada iska jeclaado, oo inuu iska yaalo uu jeclaado uu dareemo, marka wax qabo maagaba in lulmaayo la yihahdo ama gamaayo lagu soo tuuro, astaamaha xasadka kamid tahay. in gurigii raa'ixa karahiye ah ama ur gurigii ku bato, iyo qofkii inuu guri inuu nadiifiyo uu ka caajisaba oo dhibsanayo ayaa kamid tahay astaamaha xasadka. jirka guriga derbigiisa dildilaac haddii lagu arko, jajaxmaan lagu arko, astaamaha xasadka ayaa kamid tahay. xasraadka oo guriga kusoo bato, hanqaraalaha iyo waxyaabahaas abeesooyinkaas iyo masaskaas oo guriga kusoo batona waxay kamid tahay astaamaha xasadka. in qofka korontadii ay gubato ama guriga ku gubto kale waxay kamid tahay astaamaha xasadka. in qofka maalkiisa uu ku bixiyo meela aan u abayeelin, maalkii uu haystay dadaa ka qaadanayo uu siinaya, mana wax u bixinayo, in qofkii sadaqa iyo khayr jecel u bixi maayo, wixii hay kelima iska baxayaan, soo macnaha ujeeda la-aan ama sabab la-aan, wixii maalkiisii dad kale iska cunayaan, dad kale iska qaadanayo, astaamaha xasadka kamid tahay. haddaba xasadka waa fara badan yahay, inta aan sheegnay astaama way ka fara badan yahay, saata inta waa inta loo badan yahay oo dad fara badan iska arkeen. haddaba astaama haddaad iska aragtid ogow waa lagu xasday ama waa lagu eleystay ama waa lagu qumaystay, siyaa dadka oo kala garanayaanba. marka xasadka wuxuu iska leeyahay cilaaj buu leeyahay, daaweyn leeyahay, iska daaweeyo, qur-aanka kariimka iskaga daaweeyo, adkaarta nabiga alay slat slam kuso aroortay, ducooyinkii la akhrisado. haddaba cilaajka waan kala kali doona hadii alla idmo, isha ama xasadka maxaa laskaga daaweeyaa waa mawduuc kale. hadda mawduucan wuxuu khuseeyey astaamaha xasadka lagu garto. billahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu.